nahay dawladda hoose ee Hargeysa in adiga golahaagii wasiirada dhammaantiin aad nala joogtaan oo waliba gacanta ula tagtaan inaad qashinkana la gurtaan tani waa dhiirigelin weyn oo waxay dhiirigelin u tahay shaqaalahayaga waxay dhiirigelin u tahay dadweynaha reer Hargeysa ee u soo diyaar garoobay inay Hargeysa nadiifiyaan waana idinka mahadnaqaynaa madaxweyne marka qashinku wuxuu ku dhamaadaa ama wadooyinka ama dooxyada ama meelaha la wada leeyahay yaraantaadii waad garanaysaa dooxani quruxdu lahaa maantana xaaladiisu waa sidan dooxa qaybo kamid ah waanu nadiifino qashinka waan ka dhamaynay qaybaha kale hadhayna maanta ayaanu ku talagalay insha Allah taala inaanu meel nadiif ka dhigno madaxweyne degmooyinku way ku tartamayaan qashin gurka sida ay ugu tartami doonaan cashuurta ay la soo baxaan in wax loogu qabto oo ay ku horumaraan ay ugu tartamayaan waxaan rajaynaynaa galabta 4 galabnimo insha Allah taala inaanu aragno degmada xilkeedii gudatay ee ku guuleysatay inay qashinkii 80% ama 90 ama 100% inay iska nadiifiso madaxweyne bilicinta iyo qurxinta caasimadu madaxweynaha qaranku inuu nagala qayb qaataa waxay diraysaa fariin weyn shacabka reer Hargeysa waxaan filayaa markay maanta codkaaga maqlaan insha Allah saacadaha dambe inay noo soo bataan oo ay xoog nugu soo kordhiyaan si aan magaalada u nadiifiso madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka waramay in qaranka Soomaaliland uu dhaxda u xidhay horumarinta danta guud iyo basrinta qashinka ilaahay waa mahad leh nimcooyin badan siiyo nabadu kamid tahay qaran dhisku kamid yahay horumarka ballaaran dhinacyo badan uu kamid yahay ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inuu ifi aakhiraba inoo hagaajiyo maanta halkan waxaanu isugu nimid danteena guud qaran ahaan oo dhan inaynu qashinka iska basrino Soomaalidu waxay tiraahdaa aradkuna waa dan uskaguna waa doqoniimo waxaana sib daraa dadkeenu maanta in qof waliba qashinka isagoo uu sameeyo oo banaanka ku tuuro qof waliba isagu qof ahaan inta uu sameeyo ayuu tuuraa laakiin gobonnimadu waxay tahay iyo islaamnimada iyo qofka la leeyahay waa qof goba waa qofka iska basriya qashinkiisa mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa iftiimiyay sida diinta islaamka ee suubani ay u xoojisay nadaafada diinteenu waxayna faraysaa oo 5 goor maalintii weysaysta meesha ku tukanaysaa nadiifiya meydkiina maydhaa la yidhi haddaba raggii noolaadow ee Soomaaliland waxa kugu waajiba inaad adigu qashinka inta u badan basriso naftaada waxaad qashin ka dhigtay meesha aad dhigayso haddii taa la helo oo qof walba iska bilaabo nadaafad baynu helaynaa deegaankeena nadiif noqonaya caafimaadkaaga nadiif noqonaya xoolaheenna caafimaad qabaya qashinka aad tuurtay geedkii buu maaray iyo xumaynaya geedkiina xoolihii baa daaqaya xoolihiina waad manaafaacsanaysaa cudurkiina wuu ku imanaya markaa ma sahlana qofku wuxuu qaban karaa inuu qaban waayo dawladda hoose iyo dawladda dhexaba waxa ku waajiba inay diyaariyaan habkii qashinka lagu ururin lahaa loo maareyn lahaa oo ah qashinka marka hore in la qabto meel yar lagu ururiyo ka bacdi la isu geeyo sidii loo tirtiri lahaa oo ah marka xitaa la baabiinayo inaan dhibaato inoo keenin madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa fariin u diray maayrada cusub ee magaalooyinka dalka iyo golayaasha deegaanka ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyaga waxa farayaa qolada dawladda hoose cusub maayrada dalka oo dhan in ay horta marka hore diyaariyaan habkii bahalkaas loo joogtay la nadiiftiisa ma ha farxisho quraan la carcarro ilaa intiina garanaysaa meelaha rafla soo gaadheen ilaa gaalkii dhowristookii Hargeysa yimid loo jiray Harweer Sir Archer inta nadaafada waa la waday laakiin haddana waa lagu guuleysan lahaa waayo dadkaani ka soo go'in dawladda hoosana way dabacsan waxa laga rabaa wixii lagu heshiiyay in la furiyo hebelow qashinkaaga maad basri waan ku ganaaxaya ceeb ma in laga carcarro ma deegaankeenii waxa ku soo batay dhir dalka abaar ka dhigaysa tiin iyo geedka garawaan la yiraahdo iyo kaligi noole saddexdaa geedba waxaan u hayaan dhib badan waynu baabiin karaa nin waliba intuu degay xabadu intaanay dhalan ka qaadi kara waa Soomaalidu intay degto dhan laba geed baa fiican labada geedna xoolo iyo daaqto iyo beeritoon inaga bixmayso waxaan ku dardaarayaa oo ku soo noqonaya waxaan ku nool waa xoolo dhulkeenu waa roobku waa ku yariyay xoolaha ku dhaqma
xoolaha ku dhaqmaana waa nooc gaar oo waa geela iyo riyaha iyo kuwa adag xataa idin way sii yaraanayaan haddaynan xoolihii caafimaadkooda ilaaliyo intaynu magaalada ku soo gadana ay bac cunaan oo baabuurta jiidho oo hashiba ay bugto oo caano geel baan ku siinaya la yidhaahdo war dee cudur baynu iibsanaynaa markaa xoolaha laftoodii si aynu u dhaqaalayna ku jirto qashka inaan ururno war dee caafimaadkeenu san ku socon maayo 4 inaanu dooranina qaban maayaan inta ay ka badan